السلام عليكم أصحابتك وحيرن جنال كين نستح عدي سو دوادا كو هورنا لا joogan soo dhaweynayna laagta aan sheerta hanaga hilmaaminina كو نوع سمنا سو dhaweynaa subscribe kana saaran maanta waxa idin wada qiso cajiib ah al-musaamaha al-kariim ah qisadan waxay dhaxmartay laba gabdhood oo saaxiibo ah oo isla soo koreen dib iyo dheef isla soo mareen ka dhacday shaki iyo khilaaf dhaxmaray labada gabdhood waxa kala dhigi jiray Nada al-Uqdi waxay isla degnaayeen dalka Suuriya Nada waxay u dhalatay dalka Palestine laakiin waxay isla degnaayeen saaxiibteed dalka Suuriya wada kalena waxa la Sabriin waxay u dhalatay dalka Palestine waxay isla soo koreen waa saaxiibo isku dhow ay ahaayeen isla degnaayeen dalka Suuriya dib iyo dheefna isla soo qaybsadeen Sabriin waxay asaacatay dalka Suuriya dhibaatooyinkii waxyaabaha kala dhacayo waxay go'aansadeen labadii gabdhood oo saaxiibo ah inay u soo wareegsadaan dalka Masar ay soo degaan dalka Masar maadeen dalka Masar laba hablood oo saaxiibo ah isku dhow walaalo ah mar walbana garab isiyo labadii gabdhood waxa imaaday calafkooda ma sha Allah labadii gabdhood way guursadeen waxay ku guursadeen dalka Masar labadoodu waxay guursadeen laba wiil oo dhashay dalka Masar hase ahaatee gabadha hadda uu maanayso u dhalatay dalka Palestine Nada uu maanayso Jood Qardaaxi ninkii way kala tageen laakiin gabadhii kale ninkii markay kala tageen gabadha hadda uu maanayso Nada ma san dhalin wax caruur ah laakiin gabadhi kale saaxiibadeed oo Sabriina waxay dhashay Ilaahay uu siiyay ma sha Allah wiil iyo gabar asaatee khilaafkiisa dhaxmaray ay ugu sheekaysan Nada Qardaaxi ay tiri saaxiibadeeda sida isku fiicneen marka ninkii kala tagnay maalmaha kamid ah ayaa waxa ay imaaday ninkeedii qabay Sabriina Nada oo ahayd gabadhii la furay oo u imaadaya sawjkii Sabriina Jood Qardaaxi ugu sheekaysay waxay tiri sawjkii Sabriina wuxuu dhahay waxa rabaa in arrin kala hadlo soo gali karaa waa soo dhaweeyay tiri waxaan u soo gudbiyay fadhigayga wuu fadhiistay waxaan dhahay sheekh ayaan ku soo karinayaa asoo arintii aan ii sheegin oo sheekh ku maqanahay jikadan ku jiro ayaa waxa imaaday tiri saaxiibadeyda Sabriina oo soo istaagtay ninkii gabadha qabay waxay aragtay tiri ninkii oo fadhiga ku jiro aan sheekh u karinayo way xanaaqday tiri Sabriina meeshii wixii ku bilowday dagaal qayli way xanaaqday waxay tiri waxba idin ka dhaxeeyo way isdajiweysay sawjkii qabay Sabriina asna wuu xanaaqay meeshii ayuu ku dharbaaxay gacan ayuu qaaday Sabriina ninkii qabay halkii kadib wuu furay halaas uguma sii ekaan labadeeda caruur wuu ka qaatay wuxuu u geeyay gurigii hooyadeed stuudiyaha ay timid ay Nada ugu sheekadii dhaxmartay Jood Qardaaxi saaxiibadeed markuu dhaxmaray sidii caadiga ah stuudiyo qafka imaaday waxa loo diri jiray gabadhii booliska ahayd oo fariinqaadaha ahayd sidii caadiga ahayd Jood Qardaaxi oo u diray isla fariintii markay gaartay ayuu wuxuu waxay dhahday barnaamijka waxa ku casuumay Jood Qardaaxi waxa waa musaamaha isla gabadhii Sabriina way imaaday isla barnaamijkii meeshii imaaday uu soo dhaweeyay Jood Qardaaxi wuxuu dhahay soo dhawaaw sidii caadiga ahayd iska waran xaaladaada maxaa lagu dhahay wuxuu dhahay musaamaha barnaamijkaas ayaa lagu casuumay barnaamijkaas oo qabo jiray Jood Qardaaxi musaamahadaas oo tartan ahaa oo qabo jiray wuxuu dhahay ma aha barnaamijkaani waxa la dhahaa musaamaha al-kariim la dhahaa ma aha barnaamijkii tartankii ahaay soo dhawaa xaaladaada iska waran wala sheekaysto wuxuu dhahay adiga wax ilmaha ma dhashay see amal ilmahaaga meeqa ku joogto Sabriina waxay tiri wiil iyo gabar ayaa ii joogo waa li furay wiilkii gabadheed waxa la Sabriin iyo Janna Sabriin wuxuu jira wiilkaygu wuxuu jiraa tiri 6 sano gabadheedana waxay jirtaa ilaa 3 sano labadaas cunug ayaa ii joogo Sabriin wuu soo dhabeeyay wuxuu dhahay aan barnaamijkan kuma casuumin qaf ayaa ku soo casuumay ma xasuusan kartaa sidii caadiga ahayd wuxuu dhahay ma xasuusan kari qaf ii soo casuumay waxa loo furay shaashadii waxa la ma aqoonsan kartaa isla labada gabdhood oo saaxiibo ahaay ma xisan xiran jiray naqaam laakiin labadooda markaas waxa u xirnaayeen naqaam ayaa u xirnaayay mise indhashareer markaas wuxuu dhahay ma xasuusan kartaa Sabriin markii aragtay
saaxiibadeed nada wajigeeda bedelmay sidii caadigeed caro waxay tiri ku xanaaqsanahay gabadhan waa Sabriin saaxiibadeedii hore hadaan ogaan lahaay barnaamijka ma imaan laheenin waa ku xanaaqsanahay isla jood qardaa waxay tiri xataa jood qardaa adiga xataa waa ku xanaaqsanahay jood qardaa wuu waay gabadhan ayaa ii keentay wajigeeda inaan arko ma rabo ayuu ku dhahday way xanaaqday sidii caadiga isdaji ayuu dhahay ina isdajisid ayaa haboon gabadhan warqad ayay ku soo qortay waa saaxiibadaada ina warqadeeda dhageysto diyaar ma tahay isla warqadii ayuu aqriyay oo saaxiibadeed soo qortay Sabriin warqadii Sabriin uu soo qoray oo nada ka timid ayuu aqriyay warqadii ayuu aqriyay wuxuu waxa ku qornayd warqadii saaxiibadeeda gacalisada ahaydee saaxiibadeeda qaaliga ahaydee waan ku xiisay waan ogahay hadalkayga inaad maqashid ma rabtid man u dulqaadan kartid wajigayga inaad aragtid ma rabtid laakiin waxaan ahay qof la dulmiye Sabriinaay ayaa warqadii ku qorneed qadiyo si socotay Sabriinaay markaad Masar joognay waa xasuustaa noloshii farxadda lahayd aan ku riyo jirnay ibkii dheefkii aan isla soo marnay waxyaabihii arrimihii adkaaya isla soo marnay saaxiibadeeda Sabriinaay waa xasuustaa waxaad ii qabatay saaxiibadeeda Sabriinaay waa xasuustaa ma xasuustaa xiriirkeeni wanaagsanaa markaad joognay dalka Suuriya ma xasuustaa saaxiibadeeda Sabriinaay sida aad garabka ii sii jirtay mar walba ii dhiirigeli jirtay ma xasuustaa Sabriinaay wixii wanaag ahay oo na soo dhaxmaray qad waxa ku sii qornay sidee Sabriinaay ayaad ku riyootay in aniga qiyaami karo ina ku qiyaamo waxa ku sii qornay saaxiibadeeda Sabriinaay aniga waxaan ahay qof la dumiyo shakiga aad iga shakisanay ma ihi qof waxa samee karo Sabriinaay waan ka xumahay wixii dhacay waxaan cafiska weydiisanayaa kaamiradan hortooda dadkan hortooda milyuumaadka qafood ee daawa doonto almusaamaha alkariim yaasi ayay dhahday si caadiga ahay Sabriina way diiday markii qof wax lumaya ay tiri ma cafi kari awoodna uu malihi ina saamaxo dood qardaa ayaa dhahay hadalkiisii watay wuxuu dhahay qalbigeeda wax yar ma ka taawan miyaa warqada ay ku soo qortay sidee u cafi weysay gabadhan dulbi ma ogtahay adiga xataa dulmi ayaad gashay sababtoo waxaad hubin ayaa ugu shakisay wixii tiri maya ma ugu shiki kari sidee gurigeed ninkeeda u soo gelisay oo u soo dhibaysay fadhiga uu fadhiyay ma laga yaabaa ayuu yiri soo fadhiga arin kale inuu kala hadli karo adiga meesha shaki ka galay maya ayay tiri mana dhici karto in arintaas oo shaki ama aniga wax xaqayga ka imaadee tahay waa wax caad Sabriina way diiday way adeegsatay madaxeeda nada ayaa la hadal saaxiibadaada way tiri saaxiibadeyda ilaa hadda ma ogi arinta oo igala hadla rabay soojkaaga ilaa hadda aniga uu ii imaado wuxuu dhaarin ayaa kala hadla markaas soo gudbiyay shaaxa u doon isla markii adiga ayaa imaaday markay way diiday aniga ma rumaysan kari mana aqbali kari ayay tiri Sabriina arintii wuxuu dhahay jood qardaaxi ayaa sii watay oday gabadha aad u cafi karin wax walba way dhacaan waxay tiri ilmaheygii ayuu iga fageysay noloshayda ay maxal lahaa u gelisay nolol waxaan saano ku jiro keerkeyga ay iga dudumisay gabadheedii yareed ay iga waday markaas wiilka maxaa ma xasuusanaysid ma wiilku wuxuu tiray waa wiil يعني gabadha dareemi kartaa hooyadeed laga fageeyay oo yar gabadheeda janna ay iga fageysay way diiday ilaa madax adeegtay markaas wuxuu rahay waxa qaadatay nada hadalkii wuxuu tiri igu cafi gabadhaadi yar janna darteed igu cafi oo igu saamax saaxiibadeyda Sabriinaay way diiday jood qardaa dhahay gabadha darteed ku cafi marka dam waxay leedahay waan cafi almusaamaha alkariim sidii ay isku cafiyeen labada gabdhood oo saaxiibaha ahaayeen qisadan waxa ka soo dhaxayo markii aad dhageystay mise markii aad daawaday labada gabdhood ba inay labadooda yani dambi amba inay gabadha nada waxay ahayd inay tiraahdo maxaa meeshaad istaag maxaad iga la hadlaysaa bartaada ku hadal markuu dhahay guriga isoo gali amsa aan soo gudbinin dhahdaan ma ogtahay aniga diinta in qabin inaan ahay qafla qabin qafna guriga ila joogin marka ma rabo inaad soo gasid saaxiibadeedna qalad ii fahamto saaxiibadeedna kulama socoto marka waxay dhahday in dhahdo meeshaada ka hadal meeshiisa ka dhageysato hadda waxa soo ahaatay way dhacday gabadha kala Sabriina inay dhageysato arintii oo wixii dhacay meesha dhageysato
koobiso ee isdejisa ayaa helidina ma isdejin labadaas arrin ayaan ka fahmay labada waxa u baahan tahay marka qofka bilaadanka qolba dhacaan si degnaan ah inaad ku xalisid زوجها بعدين وندى اللي طلقها زوجها ايضا بعدين labada dhinac wixii ka imaad ka bacdi go'aan qaadatid انه ندى لها علاقه مع زوجها خلاص ayay naga egtaa qisadeena hadana waa sabta subscribe kana hilmaamin بعد كتير بتوجع لما بتبقى انا بعرف واخد ثقة في حدا طبعا بيطلع ما قد الثقة ما قد الثقة ويخونك أكيد إذا في بس قد يكون هنالك ظلم قد يكون هنالك ظن في غير محله على كل حال ندى اجت وقررت أمام الملايين إنه تجي وتحكي لك الحقيقة وتعتذر منك ما بدي إياها ما بدك إياها ما بدي إياها وأنا عارفة إنك أنت لو قلتي حاجة ما بترجعي فيها ولو صفيتي ما بترجعي حتى مش قدام الجمهور تكوني صفيتي لي بحق